بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع aan rabana wax ka yiraahday waxaan doonayaa laba eray inaan ka horeysiyo ama laba arrimood mid waa muhiimad uu leeyahay midna waa meesha laga soo xiganaya xogta muhiimadda ay leedahay mawduucu wuxuu ka turjumayaa dadku dayasho mudan baa jira dadkuna waqti kastoo la joogo inta wanaagsanna dad wanaagsan bay dariiqoodii hiigsadaan cid tusaale oo ay ku daydaan bay u baahan yihiin dadka xunina dad xun ay hiigsadaan iyagana halbeeg iyo dayasho u ah bay leeyihiin marka waxaan rabnaa inaan ka hadalnay waa dadka wanaagsan qaybaha kala duwan wixii aynu ka gaari karno ee in lagaga daydo ay mudan tahay tusaalayaw inaan ka bixinno dhowr dhinacoo kala duwana taasi waa muhiimadda uu leeyahay qofku inuu dad u hiigsado oo ku daydo oo halbeeg u ah oo uu hiigsanayo oo isku dayaya dariiqoodii iyo dhaqankoodii oo wanaagsanaa inuu yeesho ama isku dayo intuu ka gaari kara inuu ku dhaqmo qodobka labaad aan rabo hordhac inaan u idhaahdo wax horay oo tegey iyo taariikh marka laga hadlayo waxaa muhiima waxa la sheegayo ee la soo xiganayo inuu wax sugan oo sal leh oo la tix raaci karaya wax kastoo la sheegay ama la qoray maaha macnaheedu inuu saxan yahay tilmaan kastoo maalin kula fiicnaata qof ama dadka qayb ka midana inay ahaayeen lagu tilmaamo iyada lafteedu miisaan bay u baahan tahay lagu miisaamo waxaan lagu tilmaamay dadku inuu wanaagsan yahay waxbaa ilala wanaagsanaan kara laakiin waqtiyada ka mida laakiin dib ay ka soo bixi kartaa inuu qaldan yahay sidaa darteed tusaalayawga aan soo gudbinayo haddii alla yidhaahdo saanay uga imanin waxaani masaxan yahay waxaan ku kooban doonaa tusaalayaw aayaad qur-aana sheegeen ama tusaale sunno nabi oo sugan ay sheegtay iyadaabana wakhtigaan haysanno iyo ka badanba u baahan markaa kadib wixii kale ee tusaale taariikh culimo qoreen taraajum lagu sheegay qisas lagu soo guuriyey laga hadli karaa ama laga yaabaa hadalkeedu inuu yimaado waayo waxaa kutubta taariikhda ku qoranna qaybo badan oo ka mida waa wax si fudud loo dhihi karo ama ay u soo bixi karta inaanu sugnayn waxa dadkaas lagu ammaanayna waa waxyaabo badan oo ka mida inuu ammaan yahay oo fiican yahay muran geli karo laakiin wuxuu qur-aanku sheego ama sunnadu sheegtaay tusaalena waa ku filan yahay inuu saxan yahay oo sugan yahayna muran ma gasho wakhtigoo kooban awgii 3-4 arrimood baan mid walba dhowr tusaale inaan ka bixiya doonayaa mar waxaan rabaa tusaale inaan ka bixiyo markay qofka imtixaan iyo masaa'ib ku yimaadaan geeri baa ku timid xanuun baa ku yimid murugo iyo walwal wax keeni kara baa ku yimid qofku adkaysi iyo sabir buu u baahan yahay wax ilaahay qadaray walwal iyo walbahaar waxba lagagama taro qofku wuxuu u baahan yahay markay masaa'ibku ku yimaadaan marka jirkiisa xanuun ku yimaado marka dadkiisii ubadkiisii walaalihii ahalkiisii geeri ay ku timaado geeridu waxaan filayaa waa la xanuunsaday qofkii waxbaa ku dhacay halka ugu dambaysa geerida weeye
marka ay timaado inaan dhowr tusaale ka bixiyo. markay noqoto go'aan ha la qaato, talo wanaagsan ha la bixiyo, qofku ra'yi iyo talo qiimaysan ha sameeyo marka la yidhaahdo dhaxal iyo taariikh gashana, yana dhowr tusaale inaan ka soo qaato. marka la yidhaahdo ilmaha iyo guriga iyo qoyska ha loo dadaalo, ilmaha ha laga fikiro dhaqankooda, mustaqbalkooda, noloshooda, aakhiradooda. qoyska iyo reerku dulqaadkiisa, wixii abaal iyo wanaagga ahaa qofkii wax ku yimaado, in qofka kale uu u sabro ballamaha iyo axdiga iyo wanaagga maalmihii laysu oofiyo, iyagana tusaalayo inaan ka soo qaadaan doonayaa. markii la yidhaahdo cibaadada, zuhdiga, alla ka cabsiga, ku dadaalka khayrkana, inaan dhowr tusaale ka soo qaadaan doonayaa inaha wixii aan ka gaaro. midda koowaad xusnu ra'yi walmishwara aan dhaho, talo wanaagsan iyo tashi qiimo leh iyo soo jeedin ku salaysan caqli iyo waxgarad baa tusaalayo kitaabka iyo sunnadu ina siiyaan. aan idin xasuusiya naftaydiiyo idinkabe tusaalayagu aan ka hadlayaay dhammaan waa dad muslim ama mu'miniina wey. qof aan muslim ahayn tusaale u soo qaadan maayo. midda koowaad ummulmu'miniina khadiija radia allahu canha wa ardaaha waxaa lagu tilmaamaa, nabiguna ku tilmaamay inay ka mid ahayd dunidan dumarkii soo maray afartii ugu qiimo badnayd inay ka mid ahayd. markuu yidhi kamula min alrijaali kaiiruun walam yakmul min annisaa'i ilaa arbaca, afarta dumarka dunidan soo maray ifka inta uu jiray afarta ugu qiimo badanee ugu sarraysay ka mid ahayd. qaybihii kala duwanaadee tusaale nolosheedu ay ka tahay ma doonaya inaan faahfaahiyo, laakiin dhammaanteen ilaa maalinkaa aan joogno waxaa soo maray mowqif iyo arrin taladeedii lagu badbaaday. ilaa iyo hadda iimaanka iyo diinta aan haysannana raadkii ay reebtay iyo kaalintay markii ugu horraysay istaagtay iyo taladay bixisay lagu liibaanay. fi saxiixayn min xadiidi caaisha, nabigu markii u horreeyey calayhi salaatu wasalaam ee jibriil u yimid ee qaaru xiraa uu ugu yimid, waa kii waxoogay ciijiyey. intuu sii daayey buu ihi iqra' akhri. wuxuu ihi maana biqaariin, si loo akhriyaa ma aqaano. mar labaad baa lagu ciijiyey oo lagu celiyey, waa la sii daayey oo waxaa la yidhi akhri. wuxuu ihi maana biqaariin, wax ma akhriya aqaan. mar saddexaad baa lagu celiyey oo la yar ciijiyey, intii la sii daayaa la yidhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq. waxaan taariikhdiisii soo marin qaaru xiraa qofkii arkay baa arkaye buur dhaladeed wey. innagu hadda maba fuuli karnaba, daduun orod badan sameeyey ama baadiye ka yimid oo buuraha fuuli jiray maahane, haddaad rabto inaad fuusho dhowr jeer baa dhexda ku sii nasan. meel buur dhaladeeda oo meel god iyo gebi hoostii cidlo ah, ninkaa xoog badan oodan arki jirin intuu waxoogay kilkisha ku yargeliyo oo ku caburiyo, ku cabsiiyo, akhrina ku yidhaahdo. nabigu markuu jibriil ka tegey waa soo cararay, guriguu yimid isagoo aad u baqayo aad u naxsan. wuxuu ihi zammiluuni, war ha laydada buu yidhi, waxoogay waxbaa si igahe waxbaa i qabsaday ha laydado. qofka markuu aad u cabsado wax badanna qabsado waxoogay inuu yar daguu u baahan yahay. waa la daday. waxoogay markuu soo yarmiirsaday qofkii koowaadee uu u warramo khadiiji ahayd. cabsi badan baa ka muuqatay, naxdin badan baa ka muuqatay, ilaa uu ku yidhi naftaydaan maanta u baqay. laba arrimood bay siisay oo talo ah. marka hore way dejisay oo waxay tidhi waxba ha cabsan. marka labaadna inuu hubsado oo inaan wax laga cabsada ahaynee wanaag uu yahay waxay u arkay
bay tala siisay oo ciddii laga tala qaadan lahaa bay u geysay intee kaxaysay marka hore waxay tidhi kallaa laa yukhziika allaahu abadan ha cabsanin bay tidhi waxaanaad aragteed ka sheekaynayso aniga ilama xuma ilaahayna ku xumayn maayo maxay u cuskatay waxay xasuusisay inta uu tilmaamo leeyahay waa intii wanaag iyo abaal wacan ilaahay lagaga mudan lahaaye ma aha intii ilaahay qofka ku dullayn lahaa wallaahi laa yukhziika allaahu abadan innaka lataxmilu alkalla wa tuqri dayfa waxay tidhi martida waad soortaa markii culays wax u bardhiga la waayana dadka danahooda guudna adaa dusha u rita qofka dulman baad u gargaartaa meeshkii wax la waayana adaa wax bixiya intaa qofka samaynayaay waxaan dhacayaan weligaa ku soo marin waa dallacsiine dil iyo khatar maaha markaas intay soo kaxaysay nin diimi hore wax ka yaqiino ilma adeeray iyaga ahaayeen oo Waraqata ibn Nawfal la dhihi jiray wayeel 78 jir oo cirroobayn ahaa dunidana wax badan soo maray bay soo kaxayso u geysay waxay tiri war Waraqow bal ninkan dhagayso waxa uu sheegay adaa diimi horena wax ka yaqiinay dalmareen ahaa dhul badanna waa soo martay ummado badan baad soo aragtay kutub iyo diimo badan oo horaad soo akhriday xog diineed iyo aqoon iyo xog waaya aragnimo iyo da'deediina waad joogtaa bal arrinta ka tala bixi sidii buu nabigu u warramay sidii ay khadiijo tiri buu ku waafaqay oo wuxuu dheeraa isagu dee khadiija cilmiga kutubtii hore iyo waxyiga rabbi uu ka yaqiinay wuxuu yidhi ninka kuu yimid waa la yaqaanaa nin cusub ma aha waa ninkii nabiyada u iman jiray ee jibriil ahaa nabi baana lagaa dhigay halka waxaan rabaa inaan idhaahdo nabigoon waxyi aqoon jibriil la aqoonin markaana ugu horrayso markuu isagoo cabsanaya yimid lafahaygii baan u baqayna yidhi wax la yaab lana uga sheekeeyey intay walwasho oo beerku kacay oo hoogay oo ba'ay ma dhihin isagiina way dejisay wax badan oo wanaagsanna way xasuusisay meel tala fiican laga helana way u sii qaado way geysay Waraqana intaa kuma daynine wuxuu uga sheekeeyey waxa uu loo keenay waxa soo socday tolkii kala qabsan doona isagoo hadda inuu waayeelay uusan tabar hayn laakiin hadduu tabar iyo xoog yeelan lahaa uu hiil iyo hooba la garab istaagi lahaa waa dhiiri geliyey haddaba mawaaqiftaas oo kaleeto markay timaado in qofkii la dejiyo wax wanaagsan la xasuusiyo la dhiiri geliyo la garab istaago jidka fiican iyo dadku tala wadaagi lahaa loo tilmaamay waxay ka mid ahay tusaalayowga ku dayashada mudan markii culays yimaado inaad ka shaqayso qofka argagaxay in la dejiyo tala iyo tusaale wanaagsanna la siiyo ee aan qof naxsan lala nixin qof argagaxsanna lala argagixin qofkiina laftiisuna aan harag iyo sayo jiingada loo garaacin kackaca balaaya dhacday hoogayay ba'ayay aan la dhihin iyo aan cararni iyo aan qaxna aan la dhihin waxay ahayd faa'iido badan oo aan ka faa'iidnay in nabiga ilaahay taladeedii ku sugay sallallahu alayhi wasallam taladeedii ay Waraqo u geyseen nabigu uu ku garawsaday in ilaahay nabi ka dhigay oo diin iyo waxyi loo keenay uu halkaa ka qaatay talooyin badan oo dadku inay la dagaalami doonaan iyo culayska soo socda kadibna uu xiiso in mar laba jibriil ku soo noqdo u yimaado waxyiga loo wado marka hore uu imanayayna waa walwalsanaayo lafihiisu u baqayay taladii iyo tusaalihii iyo tallaabadii khadiija kadibna mar labaad in jibriil ku soo noqdo buu u xiisay oo u hiloobay nabigu sallallahu alayhi wasallam taladii wanaagsanayd oo helay bay kamid ahayd tusaalaha labaad waxay ahayd ummu salama radiyallahu anha wa ardaaha maalinkii xudaybiya sidii dhacday maalintii xudaybiya nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidkii bukhaari ee miswar ibn makhrama
xudaybiya nabiga calaih salaam madiina maka inay galaan bay rabeen cumray u socdeen waa loo diiday xudaybiya meeshii la dhihi jireen ilaa hadda kontarool dadka laga celiyaa ilaa hadda yaallo markaad jiddo ka baxdaan ama garoonka ka baxdaan halka shumaysi la yidhaahdo ee barta kontaroolka ee lagu kala saaro dadka ah bartaa weeye xudaybiya halkii nimankii isbaarada dhigtay weli isbaaraa taalla xarun boolis baa taalla oo dadka laga soo celiyo halkii xudaybiya markii nabigu heshiiska galay heshiiskii wuxuu qorayay nabigu inuu noqdo sanadka dambana soo cumraysto haddii halkaa laga noqonayo dadkuna cumro soo xirteen in la xalaal noqdo xoolaha la gowraco timaha la iska xiiro ama la gaabiyo halkaana dib looga noqdo la xalaal noqdo waaye fa in uxsirtum fama staysara min alhadyi waaye nabigu mar hadduu heshiis galay saxaabadii buu la hadlay amar buu soo rogay ah xoolaha ha la qalo timaha ha la xiiro ha la xalaal noqdo hawshaa ha la sameeyo saxaabadii amarka nabiga u tartami jiray qof dhaqaaqaa laga waayey qof xoolo qalaya ma leh cid tima xiiraysa ma leh dagalkaa lala wada laadlaadiyo waa la wada foorarsaday nabiga waxay ku noqotay arrin aad u culus in saxaabadiisii ay amarkiisii qaadan waayaan ummahaatulmu'miniinkii la socday ummu salama ka mid ahayd khaymadeeday joogtay oo goobta maynan joogin nabigu isagoo aad uga walwalisan arrintiina aad ugu culus tahay buu iska soo baxay ummu salama uu u sheegtay maanta waxa qabsaday wuxuu yidhi maanta waxay qabsaday wax la yaab la weeye arrintaasaan faray saxaabadii amarkii baan siinayaa qof yeelayoo dhaqaaqayana ma jiro waa la iska wada fadhiyaa qof tallaabo qaadaya ma leh intaa markuu yidhi tala saxaabadii ku badbaadeen amarkii nabiguna ku fulay yaa ummu salama bixisay fii saxiix albukhaari waxaad rasuulka ilaahayow waxba saa ha u qaadanin haddii hadalkii la diiday falkii samee way samaynayaani adigu tag cidnaha la hadlin neefkaagii soo qabo geel ahaa adigu gowrac ninkii timaha kuu xiiri jira ha u yeer kaalay dhe hebel timaha kuu xiiro markay arkaan waxaan laga yaabaa inay rajo qabaan in waxuu waxii soo dego oo loo fasaxa maka inay galaan arrintiibaa culays ku noqotay laakiin markay arkaan fal ahaan inaad u samaysay way samaynayaan waxba ha u cadhoonin dee nabiga haddii uu cadhoodo wax badan baa ka dhalan kara haddii wax kale ka soo baxo wax badan baa dhalan kara axkaam baa ka dhalanaysa waxay tidhi qof dambaha la hadlin adigu tag neefka gowrac ninkii kuu xiiri lahaa u yeer timahaaga xiir way samayn doonaane nabigu ma labayn waa soo baxay qofna lama hadlin neefkiisii buu soo qabtay waa gowracay ninkii buu u yeeray timaha xiiri lahaa timihii buu iska xiiray halkaa markuu marayo geelii baa lagu yaacay waa la wada gowracay timihii baa la isu wada xiiray qaarkood murugaday ka murugaysnaayeen amarkii nabiga ay fulin waayeen mindidii la isugu xiirayay baa la isku dili gaadhay see la isugu dili gaadhay kan loo xiirayana waa maqan yahay kan u xiirayana waa murugaysan yahay madaxii la xiirayo mindidii jiidhayn baa la arkaya xataa kaada yaqtulu bacduhum bacdan saxaabadii waxay ku badbaadeen in cara nabigu timaado nabigu wuxuu ku badbaaday in saxaabadiisii wax ku dhacaan oo meeshaa taariikh xuni ka bilaabato amarkii nabigu in la fuliyo wuxuu ku badbaaday taladii wanaagsanayd ee ummu salama radia allahu canha wa ardaaha ay maalinkaa bixisay cidday la talinaysa waayo waa ciddii uun aadamaha ugu qiimo badnayd hadday cilmi iyo caqli noqoto taladeedii waa lagu badbaaday saxaabadiina amarkii nebigay fuliyeen sanadkii dambaa la soo cumraysta oo maka la tegey taasina waxay ahayd talo wanaagsano nabigu markaa maalinkaas imtixaan
iyo culays badan baa soo food saaray soo ay saxaabadiisii amar ka qaadan waayeen arrin murugo badan bay ahayd arrin hadduu nabigu hadal dhaho ama habaarana wax badan ka dhalan lahaa bay ahayd marxaladaasoo kaleetana wax badan baa dhici kara hadday caro ilaahay tahay hadday caradii rasuulka tahay haddii cadaab soo dega tahay haddii xukunkii amarkii sharcigoo la fulin waayo tahay wax kastoo bala iyo dhiboo dhalan lahaay taladii ummu salama radi allahu canha wa ardaaha baa lagu badbaaday warkuna waa fii saxiixi albukhaari tusaale saddexaad nabiyullaahi muuse markuu cararay uu fircoon iyo qoomkiisii ka cararee madyan tegey waddan ma aqoonin dadna ma aqoonin dalna ma aqoonin nin soo talagalay oo safar u soo sahay qaatay ma ahayne nin isagoo magaalada jooga waa lagu qaban rayaayo waa lagu dilayaa la yidhi oo halkii uu taagnaa horay u dhaqaaqay buu ahaa oo naftiisa la baxsanayay magaalo ceelkii biyaha uu ka soo duldhacay ee yimid markii gabdhihii u waraabiyey kadibna gurigii aabbahooda ay tageen ee halkii lagu martigeliyey duqaa waayeelka ahaa nin mu'min oo ahaa wanaagsan gabdho mu'minaada wanaagsanna wuu dhalay isagu ciidan buu u baahnaa gabdhahanina culayskan xoolahan la kaxaynayo ceelkan la geynayo raggu isku caydhsanayo nin walba muruqiisa iyo xooggiisa isticmaalayo aabbahood wiil ma dhalin ama wiil awoodle iyo tabar leh uma joogin waxay ku qasbanaayeen inay maalin walba dadka ugu dambeeya noqdaan reerku ciidan buu u baahnaa laakiin qof kastoo ciidan ahi waan baahnahay bakhtiga looma cuna la yidhi gabadha aabbaheed la talisay wakhtigii koobnaa ee muuse adhiga u waraabinayey iyo intii yaraydee ay guriga u soo socdeen iyo intii yaraydee hadalku joogay guriga la joogay bay muuse akhriday akhris bay ku samaysay laba tilmaamood oo ku habboon in hawl iyo shaqada isaga loo dhiiba uga soo baxday aabbaheed bay tala siisay muuse ma maqlay mise ma maqlaynin aayaddu ma sheegin waxay ku tihi yaa abati istaajir inna khayra man istaajarta alqawiyu alamiin aabba waxay tihi ninkan noo shaqaale ninkan isna waa socoto oo shaqu u baahan yahay annaguna cid shaqo qabataan u baahanna laba arrimood baan u baahnayn qof xoog lahoo shaqadanna qaban kara waxna iska celin kara ninkani waaya waa nin xoog badan qof aamin ah ama xoolaha iyo shaqadana lagu aamini karo hadduu reerkii shaqaale u noqdana wixii kale baylaha lagu aamini karana waaya qof aan tabar lahaynna shaqo kuuma qaban karo qof tuugoon aamin ahaynna isagaabaad xoolihii uu ka shaqayn lahaa aadan ku aaminaynin ninkan waxaa iiga muuqata nin xoog naloo shaqadii qaban kara aaminna oo lagu hallayn karee ninka noo shaqaalay bay tiri yaa abati istaajir inna khayra man istaajarta alqawiyu alamiin laba arrimood baa laga faa'iiday taladii gabadhaas wakhtigii koobnaa garashadii iyo caqligii iyo taladii wanaagsanayd in reerkii horta ku ciilbaxo 10 sanoo soo socotaay in gabdhihii ay ka nastaan hawshii culayskii raggii iscaydhsigoodii oo hawshii iyo xoolihii iyo waraabinto iyo xooggii reerka lagaga seexdo taa waa laga faa'iiday waxaa kaloo laga faa'iiday ilaahay baa qaybka ogaaye in reerkii uu nabi la xidido muuse inuu nabi noqon doono isagu markaa ma oga reerkanna inay nabi noqon doono cidi ma oga laakiin taladii wanaagsaneed waxay horseeday ilaahay inuu muuse reerkii la xidido reerkii ka mid noqdo reerkii ay noqdaan iyagoo mu'miniin ahaa reer risaalo iyo nubuwo iyo waxyi ilaahay xidid iyo raxim iyo qaraabo la noqda waxay taladii labaad midhihii wanaagsanaa ee labaad ee nabi muuse laga dhaxlay iyo taladii gabadhaasi ay tiri inna khayra man istaajarta alqawiyu lamiin soomaali waxay yidhahdaan
qofaad saacad ku baran weyday sanad kuma baratid laakiin yaa qofka baran kara oo garan kara qofkii garashadeeda iyo garaadkeeda iyo caqligeeda leh talada wax ku oolkaana waxaa bixin kara qofkii garashadeeda iyo caqliga iyo garaadkeeda leh gabadhaasi waxay bixisay laba arrimood qofkaas shaqo u dhiibaysa ka eg qof shaqadan awooddeeda leh inuu yahay qof shaqada ammaanadeeda lehna waa inuu yahay intaad gurigii gabar shaqaysato keensato way xoog badan tahay laakiin ku kala gaabisoo ku wada xaddo miyaad faa'iidayso soo khasaartay haddii dukaankii iyo shaqadii iyo xoolihii loo dhiibo nin xoog badan laakiin farihiisa kala xadaya oo musuq maasuq iyo wax isdaamar iska sheekaynaya ka shaqaynaya oo baliya baas iyo tuuga soo hogaaminaya wuxuu kugu noqon tuuga kula taalla tabtaada ma weyda maalin aad dagantahay ku waayi maayo oo labadii suuqaa dhufto taasi taladii labaad ee wanaagsanayd ay bixisay bay ahayd taasi waa saddex tusaalo aan kaga gaabsado talada wanaagsan iyo caqliga iyo talada fiican ee wakhtiga ku habboon la bixiyaay dadka dayasho u baahan oo mudan waa yihiin maadaama tusaalayawga dadku ay badan yihiin kuwa aan sheegay inaan soo celceliya ma doonayo markii imtixaan adduunyo yimaado sabir iyo dulqaad buu u baahan yahay in waxaan qadar ilaahay inuu yahay la rumeeyo wixii xigay ka dambeeyana laga hadlo wax dhacay soo celis ma laha ajal timidna mayd geeriyooday waad murugoon laakiin waa la ooyey waa la istuuray dan nafna lagu soo celin maayo maxaa dan oo waajib oo hadda aan qabsannaa sabirka iyo habaadku markay shadaa'idda iyo masaa'ibku yimaadaan miro fiican oo wanaagsan buu leeyahay nabigana waa kiina baray sal slam qof muslim oo kasta oy musiibo ku dhacdo ee yidhaahda inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun allahuma ajirnii fii musiibatii wakhluf lii khayran minha ilaahay baa annaguna leh ilaahay baanan u noqonaynaa ilaahu dhibkii igu dhacay ajri iyo abaal aakhara iga sii wax ka fiicanna iigu beddeloo booskii ii buuxi yidhaahda ilaahay wax ka khayr badan buu mar walba ugu beddelayaa ummu sulaym radi allahu canha wa ardaaha ama alrumaysaa aan dhahno ama alghumaysaa ha la yidhahda binti milxaan waa anas ibni maalik hooyadii radi allahu canhu wa ardaahu waxay ka mid ahayd dadkii nabigu uu jannada ugu bishaareeyey fi saxiix albukhaari min xadiidi jaabir وفي صحيح مسلم من حديث أنس waxay sheegeen nabigu inuu jannada galay riya ku galay oo shanqar hortiisa ka yeeray uu maqlay oo yiri shanqarkani muxuu yahay oo leeyahay ar-rumaysa sahih al-bukhari ama al-ghumaysa fi sahih muslim bint milham sulaym waxaa guursaday abu talha radiyallahu anhu wa ardaa ansaariha meherkeedu inuu islaamay shardi uga dhigtay waxay tiri meherkaygu iyo sadaaqay wanaag islaamto wiil baa u dhashay wiilkii waa xanuunsaday abu talha wiilkii aad buu jeclaa wiilkuna aad buu muddo xanuunsaday abu talha isaga dhan waa bedelmay wiilka xanuunkiisii walbahaarkii iyo walwalka ka qabsaday iyaduna waa joogtay oo waa arkaysay habeenkii dambe salaada cishuha aaday abu talha salaada cishuha aaday intuu cishaha ku maqnaa baa wiilkii geeriyoodo naf baxay wiilku aad u jeclaa aad uga walwalayay salaad cishuu aaday wiilkiina waa naf baxay markaa aragtay wiilkiina naf baxay way isku duubday sariirtiisay gelisay si fiican bay u daday way hagaajisay xaafadday la hadasho waxay tiri qof aan ani ahayn abu talha uma sheegi kara wiilkiinu dhintay qof u sheegi kara ma laha ilaa aan anu u sheego qus aamusa qof la hadli kara ma jiro abu talha waa yimid cishihii markuu soo tukaday casho fiican bay u diyaarisay markuu soo galay su-aashii koowaad wiilkii buu weydiiyey naa wiilkii ka warran buy waxay tidhi siduu u xanuunsaday xanuunku u bilaabay xilli hadda uu ka degan yahay ma jiro eraygu
dee hadduu u degan yahay ma taahayo ma cabaadayo nabar kuma taagna waaba dhintayba dee maa lijirxin bimayitin iilaamun dhaawac qof dhintay ku yaallaaye dee xanuun u yeeshaa oo la maqlayaay ma leh waxay tidhi xilli uu ka degan yahay oo ka qabow yahay hadda ma jirto waa farxay hadduu farxayna si fiican buu isaga casheeyey hadduu si fiican isaga casheeyey waa la iska seexday iyadana habeenkaas si fiican buu intuu cashaynayay iyo intuu maqnaaba si fiican bay isu diyaarisay haddii si ninkii uu faraxsan yahay wiilkii uu qaatay isagu inuu caafimaaday cashadu si fiican bay ugu dhadhantay gogashuna si fiican bay ugu dhadhantay markii wixii wanaag ahaa ee gogasha ku dhexmari lahaa dhex maray ay aragtay si fiican inuu casheeyey gogashiina si fiican u dhammaystay bay su'aal weydiisay waxay tihi abu talxa haddii dad ammaano la siiyo ammaanada muddo ay haystaan dadkii lahaa noo soo celiya ay dhahaan maxaa u furan maxay sameeyaan wuxuu waa inay celiyaan wax kale ma u furan maya haddaba waxay tihi wiilkii ammaanu ahaa ilaahay bayna siiyey ilaahay baana qaatay cirku isku shareeray calo waa xanaaqay wuu canaantay wiilkaygii baad iga qarisay ilaa aan wax walba sameeyey ilaa aan gogol galay ilaa ay janaabe igu dhacday xilli dambe ahaydee salaaddii subax buu horay u ka lahay nabigu u tegey sal ly slam arrintii buu ugu calaacalo ugu sheegtay saasay igu dhacday buu yidhi xalay salaaddii ummu sulaym ahayd saasay ku samaysay nabigu calayh salaam wuxuu yidhi oo keliya baaraka allaahu lakuma fii ghaabiri leylatikuma habeenkiinni xalay ee tegey mid wanaagsan oo barakaysan ilaahay idinka dhigo habeenkii wiilkii cabdullaahi bni abi talxa calool galay iyadoo safar la yahay oo abu talxa iyo ummu sulaym ay ghaswada jihaadka la socdaan baa shinkeedii soo dhammaaday waa la soo noqday markii lagu soo dhowaaday magaalada nabigu durba ma geli jirin ilaa warka reeruhu ay helaan oo guryaha la isdiyaariyo bannaanka magaalada ama masaajidku ku hakan jiray raggana wuxuu dhihi jiray may degdeg guryaha ku gelina guryaha ha la isdiyaariyo reeruhu ha isdiyaariyaan ha laydin maqlay inaad timaadeen san ishuna wuxuu qaban reeraan diyaar ahayn aan loogu tegin isaga waa la fasaxay maadaama ay fool hayso waa la fasaxay habeenna way ahayd markay soo baxeen bay waxay tihi waxaad yeeli xanuun ma dareemayo wixii aan umushi iyo foosha dareemi jiray ma dareemaye anigaa baxaye oo gurigayga tegaye orad nabigu u tag isagii nabigu ku haray markay umushay anas bay u yeertay waxay tihi wiilkan qaad intaan cidin nuujinin inaan naas afka loo gelin nabiga u gee nabigu waxaa ku soo baxay subaxii anas oo xambaarsan markaasuu wuxuu yidhi musalayn baa dhashay markaasuu yidhi haa wixii u horraysa nabigu timir buu roogay halkaa dhanxalagu u mariyey durba wiilkii timirtii buu leefleefay nabigu tuu qoslay wuxuu yidhi reer ansaarid fiiri timir jacaylkooda timir jacaylka reer ansaarid durba suu u boobay u malabsanaya fiiri buu yidhi cabdullaahi buu u bixiyey kadibna hooyadii baa loo soo celiyey waxaa ka adkaysi badnaa abu talxa ummu sulaym oo waxaana sida dabiiciga ahayd inay hooyadu ka walwal badato ilmihii waa nafaxay marka la yidhaahdana hoogaya oo ba'aya iyo qayla iyo gurigaba marka la soo galo gurigoo dabagaddoonsan oo sariirtii la rogayoo dhulku wada waxaysan yahay la soo galo sabirka ilaahay wiilkii dhimay sabirka ilaahay wiil kaluu ku siiyey in nabigu u duceeyuu ku siiyey oo yidhaahda baaraka allaahu lakumaa fii ghaabiri leylatikuma بدل خير قباء إلهي سيء سيدي إلهي بلغ سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وحيوته تصالح وحي مصيبة أي ما داي هي قدر كي ما داي ويجيرود وقول بدن تهاي إن صبر يدل قاد الله يشرو إن لو قاد هو قدر وأنا وحي إلهي كسيء إلهي نقاطي أيوبا أنت إلهي إن الله صبره السجن خير كي يقولوا يديستو dadkana aan la argagixinin aan laga nixinin hadda waxaad arkaysaa dadka xaafadaha markaad marayso
ilmo yar baa nabar gaaraya ilig baa ka jabaya hooyadu oday shaqo ku jira ama duurka maraya telefoon baa la soo diray waag hore telefoon ma jiri jirine guriga marka la yimaado baa la ogaan jiray balaaya dhacday ilmaha sida noqday hala soo cararo isbitaal ha loo cararo ama galalow xataa ilmihii kuwii kale baa cunno in la siiyo oo dantoodii laga warqama isku dhex yaacaysa oo hadday geeri timid miyaa la celin karaa manaf baa lagu soo celin in qadarkana la rumeeyo musaa'ibkana lagu sabro oon la argagixin ilaahayna khayrka beddelkii la weydiiso isku siiyo waa tusaale labaad maryam binti cimraan adduunkaa lagu imtixaanay dembi ay gashay ma jirin gabadh zaahidada oo caabidada ay ahayd dadka ma dhexgeli jirin mixraabkeeda iyo masjidkeedii yaraa bay isaga tukan jirtay ilaahay wuxuu doonoo qadaray inay aabbala'aan ciise dhasho iyadoo duurka u baxday faarsalnaa ilayhaa ruuxana fatamahala lahaa basharan sawiyan bini aadam buu isaga soo dhigay qaalat inii acuudu biraxmaani minka in kunta taqiya ilaah daa ka baqaysniyo igiiska daa badbaadi waa meel bannaan cidlo ay suu xaaji gudanaysa wuxuu yihi qaala innamaa ana rasuulu rabbiki liyahaba laki ghulaaman zakiya waa qadaray ilaahay uur bay qaaday shinkeedii bay dhammaysatay bal mujtamaca dhex joogto adiga ilaah aad ka baqayso gabadhoo nin lagu ogeyn reer fiican oo culummo iyo ahludiinana ka dhalatay aabbiyo hooyaba iyadoo nin lahaynoo uur wadda bal imtixaankeeda adigu fiiri markay fooshu qabatay geed hoostiioo duur ay u carartay waxay ka gaadhay laytanii midtu qabla haada wa kuntu nasyan mansiyan sidan dhimashaa ii dhaantay bay tiri aan magacaygana la aqoon cidna i xasuusan dhimashaa dhaantay sidan waxay ka turjumaysaa kurbada iyo walwalka iyo culayska ay dareemaysay waxa ay filaysay dadka inuu kaga yimaado waa lala hadlayoo fanaadaaha min taxtiha anlaa taxzanii qad jacala rabbuki taxtaki sariyan وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا أخيرا المهي سوقاده dadkiina uu timid iyadoo ilmo wadata dadkii madaxa gacmaha saartaan faatat bihi qawmaha taxmiluhu iyadoo ilmihii sidata oo maalmo duurkii soo joogtay oo timirtii ilaahay geedka uga soo daadiyey iyo biyihii hoosteeda la mariyey iska cuntay ilmihii iyadoo wadata timid de ka yaabay oo ku galay ma maqashay dadkan hadalkooda iyadoodan waxba samaynin baaba dadka dacaayadoodii iyo in yar qofkii loo helo waxaa la yidhi wixii casarkii lagugu arko baa cishihii lagugu caayaa soo maha bal gabaraan nin lahayn oo ilmo xambaarsanoo wadatoo soo baxday maxaad filaysaa yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki imra'a sawin wamaa kaanat ummuki baqiyan baa layidhi aabbahana nin xun ma ahayn hooyadaana dhilla ma ahayn naagtuma too xun ma ahayn maxay tahay waxaad samaysay adoon nin lahayn iyadana waa waxay ku calaacalaysa annaa yakuunu lii ghulaamun walam yamsasnii basharun walam aku baqiyan seen ilmo u dhalayaa nin xalaal igu taabtayna ma jiro qof xunoo meelaha qaraabatan oo qaraaftana miihi xun khayr sax iyo khalad toona midnaba rag ismaanan arag seen ilmo u dhalaa dadku wanaag bay ku yaqiineen reer ahludiin ay ahayd aabbihii qof fiican buu ahaa hooyadeed saasay ahayd yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki imra'a sawin wamaa kaanat ummuki baqiyan hooyaana qof xunoo tumata kumaanaan aqoon ma ahayn aabbahana nin xun ma ahayn maxay tahay waxan waa yaabe ilaa yowmina haada dad baa leh way gogol dhaaftay oo xaaraan bay ku dhashay ilaa hadda bini aadamka qayb baa leh wakhtigaa laga soo bilaabo soo laynama dhihin
19 sano ciigso wareegtay dhalashadii ciise intaaba haddaan ka dhigna 2019 sano caydii kama hadhin weli culayska intaa la eg soo dhimasho ma dhaanto keliya faashaarat ilayh qaaluu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiyan annaga maa maskaxdayada ku ciyaaraysaa caqliga iyaga mawaalanna ilmo dhabar lagu wada seerna ula hadalla adaan kula hadlaynaa adigaanu kula hadlaynaa ilmahan la hadla maxay tahay lagama garaysan loogamana garaabin laakiin haddii lala hadlay oo ghulaaman zakiya la yidhi wiilkani nabiga ilaahay ku arsaaqay bay u sabirtay kharaar kasta u liqday waa laga yaabaa nadhahay maxay isu dili weyday maxay toorre isu gelin weyday maxay isu ciijin weyday anu sun baan liqi lahaa qofkaa dumarkii imise waxbay ku fikiri lahayd inay isdisho wax kastaad ku fikiri lahayd laakiin in loo dulqaato oo amarka ilaahay la qaato oo dhaga hadalka dadka iyo dacaayadda aan dan laga gelinee tii rabbi faray la fuliyaayey wax sahlan ma aha mowqifkaas oo kale sabir iyo adkaysi buu u baahan yahay maxaa laga dhaxlay in ciise nabi noqday in ambiyada ugu fadli badan ilaahay ka mid dhigay in ilaahay kor u sii qaado oo weli nool yahay inuu iman doono ummad iyo diintan islaamka mar labaad risaalada maxamed badbaadin doono waa qayb ka mid ah thamaraadkii sabirkii maryam radia allahu canha wa ardaaha tanna aan labadaa tusaale kaga gudbo markay timaaddo qoyska in ilmaha laga fikiro inta uusan dhalan iyo markuu dhashay kadib ilaahay loo baryo in qoyska laga fikiro burburkiisa iyo de xaalad khilaaf intuu yimaado haddii waxun kale tegitaan uu dhaco xal la raadiyo in haddii gabadhu ninkii ay nolol badan qaybsadeen imtixaan ku yimaado ay u dulqaadato tusaalayow badan bay sunnada nabigu ina siisay sala allahu alay wasalam oo habboon in lagu waayo qaato tusaalayow badan qur-aanku wuxuu ina baray maryam hooyadeed iyadoon maryam dhalin bay u alla bariday ilaahay bay barida waxay tihi innii nadartu laka maa fii baطni muxararan fataqabal minii innaka anta asamiicu alcaliim calooshay ku waday ma wiil baa ma gabadh baa mayna waru haynin ilaahu ilmaha calooshayda ku jira adii dartaa baan u nadray inuu qof noqdo cibaadadaada ka shaqeeya adiga ku caabuda khayr ka shaqeeyee nadarkaasaan galay ilaahu iga aqbal oo ilmaha calooshayda ku jiraay mid sidaa noqda iiga dhig way dhashay waxay ku rajo weyneedoo xilligaa wixii jiray ahaa muxararantu diinta u go'a oo diintaa un ka shaqeeyaay wiilashaa curfiga iyo dhaqanku ahaa markay dhashay gabarh bay dhashay falamaa wadacatha qaalat rabbi innii wadactuha unhaa wallahu aclamu bimaa wadacat walaysa dakaru kalunhaa wainnii samaytuhaa maryam wainnii uciiduhaa bika waduriyataha min ashayطaani arajiim waxay tihi ilaahayow gabarh baan dhalay ilahay waa ogyahay waxay dhashay gabdhihiiyo wiilashuna isku mid maaha laakiin nadarkaygu waa sidiisi laakiin waxaa laga yaabaa meeshuu rag mari lahaa iyo dhibku u adkaysan lahaa iyo meeluhu ka dhici lahaa gabar inaynay ka dhici karin laakiin haddana maryam baan u bixiyey axdigii iyo ballantii waayga sidii waxaan kaa baryayaa labo ilaahu iyada shaydaan ka badbaadi ilmahay dhali doontana ilaahu shaydaan ka badbaadi saa darteed nabigu muxuu yidhi alayh salatu wasalaam ilmo kasta oo dhasha markuu dhasho shaydaan baa jag ka siiyo qayladaad maqlaysaan weeye ilaa ciisa iyo hooyadii maahane ciise iyo hooyadii maahane ducadii la aqbalay eeyaydii ayaa shaydaan ilahay uga badbaadiyey hooyadaasi ma aha keliya waxay ka fikiraysa ilmahay caloosha ku haysay ee haddana bannaanka yimid ee xataa ilmuhu dhali doona waayo
halka maxaad ka garanaysaa ilmuhu intuu caloosha ku jireen isifkaba imanin alla bari buu u baahan yahay ilaahay in loo baneeyo baryo u baahan yahay wuxuu labaada u baahan yahay qorshuu u baahan yahay aad ugu talagashay maryam caloosha iyadoo ku jira ilmuhu bay ku sii talagashay inay saa u qaabayso saa u tarbiyayso hawlka u jahayso sida ay noqotay u talagashay taasi waa tusaale labaad khawla binti thaclaba iyo ninkeedii aws ibni saamit yaryaraan bay isku guursadeen way isla waayeeleen dihaar buu sameeyey oo wuxuu yidhi hooyadii oo kale aad iga tahay islaamka awalkiisii hooyadii baad iga tahay sidii talaaq iyo furitaan bay ahayd nabigay u timid waxaa ku tiri rasuulka ilaahi arrintana dhacday wuxuu yidhi de bas wax la qabta ma leh waa idinka dhammaatay waxay tidhi sidaas maaha nabigay ku calaacashay waxay tihi rasuulka ilaahayow ninkan la yidhaahdo aws ibni saamit waxaani wuu dhacaye cimrigaygii isagaan la soo dhammaystay iyo da'daydii meel kaloo hadda aan tegi oon wax ka raadini ma jirto guri iyo reer kala daydayna da'deed miihi da'daydii waa weynaatay dhalmadaydii way dhammaato dhalmo waan ka baxay isagaan wax walba isla soo marro oo boogga iyaga iyo beerka iyaga iyo laabtaydu isu bannaanaadeen da'dan markaan joogaa dihaar ka dhacay nabi wuxuu yidhi maye xal kale idinma hayo xal kale idinma hayo xilligaa goobta caaisha joogta nabigay madaxa ka dhaqaysaa khawlana waa calaacalaysaa khawlo markii dambe markay nabiga ka quusatay ay ku celcelisay ee calaacashay maxay ka hadlaysaa xal noo raadi aan reer ku ahaan karno oo reerku ku jiri karo yaa waxay tidhi ilaahay baan u dacwoonayaa oon dhibkaygii iyo duruuftii haysata u sheeganayaa caaisha waxay tidhi waxyi baa ku soo degay nabiga anigu wixii loo waxyooday ma maqlaynin nabigaan ag taagnaa weliba madaxiisa dhaguusoo madaxa uma dhowo oo madaxa kuma yaallaan madaxaan dhaqayay qul qad samica allaahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha maxaa ku xiga watashtakii ila allah ilaahay waa maqlayaa taxaawurakuma faraj baa yimid kafaara gud baa la faray reerkiinniina ahaada la yidhi hooyadaasi ninkay intaa soo wada noolaayeen waxa dhacayna wax dagaal iyaga dhex maray kuma iman wax dagaal dhex maray kuma imanin xaalad si uun u khaldantay isaguna uu yidhi dembi waxaad kaga badbaadi kartaa dihaar iyo kala tag bay ahayd aayad baa soo degtay sharci baa ilaahay jireeyey ilaa hadda xukunkeedii lagu dhaqmayo xal noqday ilaa hadda qoysaskii lagu dhaqmayo xukunkii kala tag inuu yahay ahaayoo dhan baa la nasakhay oo la beddelay qur-aankuna wuxuu taariikhda geliyey watashtakii ila allah labadii arrimood calaacalka nabiga ku calaacalayseena tujaadiluka fii zawjiha baa layidhi kaala murmayso oo kaala doodaysa ninkeeda xaalkiisa waxay ku dartay isna waa waayeelo cid daryeesho u baahan yahay oo maanta nin keligii isku filan ma aha aniguna hadda nin kaliya waxaan ka qabanba ma jiro waana waayeelay da'ya dhalmana iskuma harin mid cusub hadda kala bilow eber maba kari karaba waxaa noo haray waa in yaroo isku khaatumaysanna waay hadda innaga 70 jirkii baa laad iskala daalay oo kuwii awowgii ayeeyada ahaa baa la isku kari laayay tusaale saddexaad nabi ayub calayhi salaatu wassalaam isagoo nabi ah baa la imtixaanay adduunyada waxaa lagu imtixaanay xanuun jirkiisoo dhan baa xanuunsadoo wada booga noqday 18 sano isku xigtay buu sida ahaa tol iyo qaraabo iyo walaal iyo eheloo dhan baa ka kala cararay 3 qof baa ku soo haray miduu joogto ugu saaro xaaskiisii bay
laba nin saaxiib ay haayeen marmar bay u iman jireen oo u halaha saawi jireen oo u sheekay jireen ayuub maalikii dambe ilaahay baa caafiyey nimankii baana sabab u ahaayo sheekadooda weligii 18 sano ilaahu dhibkiga qaad ma dhihin kadib hadallaa yidhaahdeen ay ku dhaga hadleen buu ilaahay baryey ilaahay baa caafiyey maxay samayn jirtay markii xaajo la gudanayo guryuhu musqula ma lahayn guryuhu musqula ma leh way garabka ay qabataa meel bannaanka ay geysaa way ka soo durugtaa markay istiraada wuu dhammaysay bay ku noqotaa garabkay soo qabataa maalikii dambe ilaahay baa caafiyey urkud birijlika hadaa muqtasalun baaridun wa sharab bali biyihii buu lugta ku dhuftay waa ku qabaystay waa caafimaaday iyadoo meeshii taagan oo rabtay oo sugaysa buu ku soo baxay way fiirisay nin sakaraada oo garab la hayo oo la istaajiyo oo la fariisiyay hadda xaajo gudasho geysay hadday ninkan eegto waa ayuub waagu caafimaad qabay laakiin ayuub caafimaad kuma ogeyn dadkuna waa isu ekaan karaa way fiirisay meeshii ay u dhowaatay ma jooga ayuub su'aal bay weydiisay waxay tiri warniyahow su'aal baan ku weydiiyey yay weydiinaysaa ayuubkii laftiisii waa waxay tiri nabigii ilaahay ee imtixaana oon halkaa ku ogaa ma joogo waagu caafimaad qabayn aduu ku ekaa ma aragta kasir waa anigii calayhi salaatu wassalaam sabirkaa in la isu yeesho gabadhuu ku dhici karaa xanuun dhib baa la soo dersi kara way curyaami kartaa cudurro adag baa ku dhici kara ninkay sidoo kale ku dhici kartaa dadka reerka noqday ee ismutay ee abaalka isku yeeshay gabadhaas waxay tusaale u tahay in la isu safro oo la isu dulqaato oo abaalkii la isu oofiyo laakiin waxaan joognaa waqti mid markuu waxoogay cajiso ama waxoogay yar xanuunsado ani mageed ka baxay baanahay idhaafi oo dhulka iyo jidka iyo bannaanka lagu kala dhaqaaqayo waqtigeedaan joognaa ugu dambayntii adduunyadan israacinteedu iyo shahawaadkeedu in ilaahay dartii looga tago intaad aakhiriya adduunyus barbar dhigto adduunyadood wax walba heli karto maal heli karto mansab jaa heli karto magac iyo muuqaal heli karto laga doorto aakhara iyo ilaahay raaligelintiisuna tusaalayo u badan bay leedahay laba aan soo qaaton ku gebagabeeya hadalkayga waxaan filayaa wuu ila tararay hadalku mid qur-aankaa lagu sheegay midna sunnada aan ka soo qaato qur-aanku waa imra'atu fircawn oo nabigu markuu lahaa walam yakmul min annisaa'i ilaa 4 khadiijo wuxuu ku daray aasiyatu imra'atu fircawn nin ummada ilaahay haystuu ahaa awood hadday tahay maal hadday tahay sida looga dambeeyay ciidan hadday tahay alaysa lii mulku misr wa haadihi al-anhaaru tajrii min taxti afalaa tubsiruun inta webi hoosteeda durduraysa eega boqortooyada aan haysta eega gurigaasay ku noolayd heerka laga gaaray la weynaynayo in la caabudo isagii wa ana rabbukum alaclaa uu yidhaahdo oo yidhahda maa calimtu lakum min ilaahin hayri oo yidhahda maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdikum ilaa sabiila arashaad ninkii fircawn ahaa ee ilaaha laga dhigtay ee intaa awoodda lahaa ee intaa barwaaqo haystay gurigiisay ku nooshahay gaalnimadana waa dhibaysaa إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله إنك وحقي الشرمات إلا هلا بلو قالوا بيا هذا وحقي حلي الشقي إلا هلا لو قالوا بيا هذه اللي نوبل برايس بالوسين أما مقع بديالنا وسياسة يشقى لوسين أما سبونسر بالوسين وبالإسلوفين kaniisadaha loo galayaa sooma kaniisada islii ku yaalla weli la galaa waa loo gaaloobayaa quraanka loogu dul istaagayaa wax kastoo xun baa loo dhahayaa maxaa lagu samaynayaa fiisa lagu siin
tigidna waa lagu goyn wadanna waa lagu dhaxtuuri noloshana iska celin wadankaasaad inaad nacfi ka heli baad rajo ka qabtaa tan nacfi dhaba ma aha oo lagu siinayo halkaana noloshaada iska celinoo harjadkeedaad geli haddiiba lagu yidhaahda kanaa lagu siin waa loo gaaloobayaa imisaa gabdho iyo dumar muslimna maanta waxaa dunyo oo loo babiyey diinta uga tegay iyo akhlaaqda iyo dhaqankii firi aasiya imraati fircawn halkii loo socday ugu sarraysay bay joogtaa gurigii bay joogtaa wixii uun adduun laga helayay baa yaalla loo soo gurguuranayaa gurigii baa loo sujuudayaa laakiin waxaas uma dhadhamayaan waxay leeyahay rabbi ibni lii baytan cindaka baytan fi ljanna ilaahu jannada agtaada guriga dhis kow wanajinii min fircawna wa camali ilaahu fircoon iyo waxa uu samaynayo anu lama qabay iga badbaadi wanajini min alqawmi alaalimiin dadka tolkaya ee waxa fircoon samaynaya dulmiga iyo gaalnimadaas iyo xadgudubka ku jirana ilaahu iga badbaadi ilaahu cadaabkooda iyo dulmiga wadaan ee gurigan ka socda ilaahu ay qaban qofkaasi shahawaadkii waa u sahlan yihiin jaahii baa u sahlan maalkii baa u sahlan magacii iyo muuqaalkii baa u sahlan laakiin waxaa kala weyn iimaankeedii aakhiradeedii ilaahay ridihiisii iyo gurigan adduunka ka jannada kala qaalisan waa wax mudan wax inta aad uga yar oon malyankiiba hal gaarin in loo gaaloobo diin looga tago iyo tusaalaha aasiya imra'atu fircawna isma laha waxaa la mida qisadii fii saxiixi albukhaari iyo kayrkii ku jirlay saddexdii intay god galeen wuxuu ku gadoomay ee yidhi waa quus maanta dhagax la riixi kara ma aha ilaahay baa inaga saari kareen nin walba camal saalixa ilaahay ku bari saddexdaa nin ka midihii gabar bay ahayd ilma adeer ahaayeen aadna uu u jeclaa iyadana diiday wax walba way ka diiday maalinka dambe waa kay musiibadii iyo abaartii iyo qaxu ku dhacay waa caydhoobeen gaajadu waa cadow markay gaajada naftu ku qabato waxaa laga yaabaa bakti aadan cunteen baad cuni waxaadan aqbasheenna waad aqbali gun bay kaa dhigi gaajadu markaad gaajaysan tahay gun bay kaa dhigi qof akhlaaq xun bay kaa dhigi carabtu waxay yidhahdaan kaada alfaqru an yakuuna kufran faqriga iyo baahidu gaalnimo socoto oo luga leh inuu noqdo ku dhowaaday manaa faqrigu dadka uu la gaaloobaa gabadhii abaaraa ku dhacay reerkii xoolihii baa ka dhammaaday wax la liqo iyo qaadaan bay waayeen isagiina nin xoolo haysta oo taajira waaye dhinaca kale waa ilma adeer waa raxim iyo qaraabo way soo mudatay isaguna ilaa xilligaasi qof shakhsiyad iyo damiir lama laho shaydaan baa ka saa'id caleeyo ka adkaaday markuu arkay gabadhii oo soo mudatay iyo inay dhulka baahi taallo iyo wuxuu yidhi waan bixin wax walba waan ku siin laakiin waa inaad i oggolaato faaxishiya zina inaad oggolaato waay iyadii laba arrimood baa haysata inay oggolaato iyo dhimasho iyadiiyo dadkay ka timid iyo reerkii in la baabao iyadoo cagajiidaysa bay oggolaatay markii meeshii gogol iyo sariir la tegay bay waanisay innagu hal jikana baa jirkii lagu iibsanaya hadda oodan baahi ku haynin ogow qof aan gaajaysnayn oo qureecday oo qadeeyey oo casheeyey baa caawa in jikin iyo jibis la geeyo buu jirkii raqiisu yahay markaasna waxay ku tiri niyow ilaahay ka cabso intaad ka cabsato waxaan xalaal ahayn ha igu samayn qofkaasi mixnad baa haysata laakiin wuxuu leeyahay iimaan ilaahay subxana wa tacaala quluubta isaga haysta ilaahay man yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja ilaahay qofkii ka cabsada dhibka iyo mixnadda iyo fitnada uu ka badbaadiyaa ninkii waana lagaga quustay wax walba loo sheegay
horey lagu kari waayey raxim iyo qaraabtinimo iyo ahalnimo la xasuusiyey sharaf iyo cirdi ilaalin lagaga quustay halkaa markuu joogo baa ilaahay qalbigiisa cabsi geliyey marka halkaa la joogaayey waa marmaryo iyo dharkii la dhigay wey in falkii xumaa la sameeyo unay dhimanta markuu halkaa marayo iyadana waxaa lagu imtixaanayey iimaankii alla ka cabsigu ka dhabmaya ilaa halkaas ay marayso raalli maaha laakiin nin baa derbi riixay baa la yidhi wuu ka riixmi waaye wuxuu yidhi adagaa madan baa madan aan la dhaafi karin buu yidhi madan baa adaga halkaas iyada ka maraysa markaasaa ilaahay qalbigiisa cabsi geliyey gadaal intuu u gurtay buu dharkiisa qaatay xoolihiina waa u daayey wuxuu yidhi iyagana qaado adigana bes baad iga tahay waxay sabab ugu noqotay isagii inuu hanuuno oo godkii intuu taa ku allah baryo ilaahayow haddaan dartaa maalinkaa u daayey dartaa haddaan u daayey maalinkaas dhagaxan ilaahu naga qaad qayb baa bannaanaatay dhagaxii isagii baa qof saalixa noqday maalinta intii ka dambaysay waxaa la yidhahdaa baashaa faaxishada iyo zinaduna way aroor fiican tahay baa laakiin way fulitaan xun tahay xilligaas ilaa halkaa ilaahay cabsidiisii iyo mixnadaa haysay inay ilaahay weli xasuusnaatay oo ilaahay ka cabsan dhahdahay innaguna sida rakhiiska ah ee jidhka loo iibinayo iyo waxa rakhiiska ah ee lagu faaxishaadka lagu samaynayo de laba isku mida maaha laba isku midoo isqaadan karta maaha waa gabar mudan in lagu daydo in ilaahay aad uga cabsato jidhkaaga xaraan inaad ka ilaaliso oo mar kastiyo xataa haddii lagu qasbo oo dani ku qasabto daqiiqadaha ugu dambeeya alla xasuustiisa iyo cabsidiisa inaadan halmaamin ilaahay faraj buu kuu furayaa ilaahay faraj buu kuu furayaa sida gabadhaasoo kale ku siinayaa waman yattaqi llaha yajcal lahu makhrajahu isagiina salaax iyo iimaan baa la siiyey intaasi iyagana waa laba tusaale oon isleeyahay kitaabka iyo sunnada ku qoranoo gabdho ku dayasho mudanoo miaal iyo tusaale ah weeye markay shahawaadka adduunyadu soo mareen intaa in la midoo raggana waa jirtaayoo mid walba haddii rag la yidhaahdo tusaale ah marka inaad iska fudaysato jidhkaagii cirdigaagii sharaftaadii ama jaah iyo maal iyo magac baan meeshan ka helayaa adaa kharadaadii iyo diintaadii iyo siisataay qofku habboon maaha qofka muslimkaa intanaa tusaale ugu filan ka faa'iidaysta intay maqan yihiine laba tusaale oo zuhdiga iyo cibaadadii iyo khayrka badintiisana aan idin keeno juwayriyat bn bint alxaaris umulmu'miniin radi allahu canha wa ardaaha waxay ahayd qof aad u cibaado badan innagu saan u fikirna ma u fikiri jireen saxaabadu waxay u fikiri jireen nabiga iyo guryihiisa marka laga hadlo iyaga waxyi baa ku soo dega khayr badan baa ilaahay siiyey cibaado badan ba iyaguma baahna annagaa dembi badan waxay inaguma soo dega guryaha iyaga annagaa inaan ruclayno cibaadadoon dadaalloon orodna u baahan saasay u fikiri jireen ee uma fikiri jirin iyagaaba ku soo degoo dadaal dheeraadaa laga rabay umaanay fikiri jirin walidaalika 3 saxaabaa guriga nabiga markay yimaadeen cibaadada nabiga ay waraysteen way yaraysteen waxay dhaha annagu nabiga isma barbardhigi karno isaga wax hor iyo wax dambaba waa loo dhaafay saas darteed isaga cibaado badanba lagama rabo annagaana laga rabaa inaan dadaalno saasuu miisaanka fikirka saxaabadu ahaa waxay saas tahay nabigu calayh salaam umulmu'miniina juwayriya salaada subax buu nabigu aaday iyadoo salligeeda guriga intay dhigatay halkaa ku tukanaysa oo tukatay salaaddii subax buu soo tukaday waxoogay masaajkuu soo joogay hawlo iyo danuu soo qabtay xilli dambeoo barqadii ah buu yimid iyadoo halkii iyadoo fadhida buu ugu yimid nabigu u weydiiye wuxuu yidhi ma sidii baad u fadhidaa markaasay tihi haa ogow salaad subax ka hor buu kaga tegey barqadiina waa ugu yimid halkay ku tukatay bay fadhidaa dikri tasbiix qur'aan ducay haysaa markaa nabigu calayh salaam wax ajir badan buu tilmaamay wuxuu yidhi laqad qultu bacdaki 4 kalimaatin 3 maraat
saddex erayba afar eray baan idhi oon saddex jeer ku celiyey haddii la barbar dhigo wixii aad tiri oo la isu miisaamana la eg ajir ahaan subxaana allaahi cadada khalqih wazinata carshih waridaa nafsih wamidaada kalimaatih salaada subax xilliguu aadaya ilaa barqadii uu soo noqday wixii dikri iyo tasbiix iyo qur'aan iyo ducaha waxaa la ajira afartaa eray oo saddex jeer ku celiso marna cibaadadii bay tilmaamaysaa marna dadaalkeedii nabiguu amray dikrigan yaree ajirka badan baynu ka faa'iidnay innana waa ka faa'iidnay waxaa la mid ahayd umumini zaynab binti jaxshin radia allahu canha wa ardaaha nabigu waa kii masaajka soo galay markaasuu xarig meel ka lalmada arkay markaasuu yidhi oo xarigganna muxuu ahaa waxaa la yidhi zaynab baa iska leh maxay samaysaa way tukataa say u wadda salaadda markay daasho bay ku yar nasataa xarigga qabsataa ogow waxaad dhihi lahayd war nabigaaba qabo oo gurigaa waxyuu ku soo dagaay cibaado badan maxay uga baahanta laakiin tarbiyadii nabigu reerihiisa tarbiyeynayey baa waxay ahayd in salaadda iyo dikriga iyo cibaadada iyo allabariga la badiyo qofku inuu khayrka badsado cibaadada ka dhaxlo waxaa lagu yidhi nabiga zaynab baa iska laho markay say u tukanaysa daasho iyo xariggan qabsataa ay ku yar hanasataa markaasuu yidhi ka fura intaad awooddaanna tukada ma dhihin na naftaa kaa baxday maa iska daysid na wax yar baa kaaga filane maa iska yaraysid ma dhihin wuxuu yidhi intaad tabartii iyo awooddu u leedihiinna tukada markaad daashaan iska nasoo iska fadhiista waxba xarig intay qabsato xarigga markay qabsanaysa maxay samaynaysaa taagnidaa yar dhibtay salaaddii bay xihan xariggana way ku yar nasan intaana taagnidii baa salaaddii qur'aan iyo la akhrinayaa wuxuu yidhi may ha iska fadhiisato ha iska nasato markay waxoogay yar nasatay daalku ka ba'ana salaaddeeda ha bilowdo waa iska wadato taasi waxay iyadana waa zaynab binti jaxshin umule radi allahu canha wa ardaaha labaduba waxay tusaale u yihiin in dikriga iyo gabdho cibaado badnaa salaad badnaa adkaar badnaa wakhti dheer baan telefoon iyo tv gelinnaa sheekada iyo haasaawaha iyo suuqana wakhti badan baan gelinnaa laakiin salaadda degdeg iyo boobsiis baan ku tukannaa markaasaa halkudhig waxaa ah iikaadii culayska salaadda aan iska ride jawaan la soo xambaarayo culaysaad ka dareemaysoo tuuraysa wey mid way fiican tahay culaysana aad dareento markii salaadda laguu leeyahay oo faralka iyo cibaadaadku ay welwel iyo culays kugu hayaan laakiin dhinaca kale inay naftu ku raaxaysato oo dikrigaa ku degta weeye inay carar kaga baxdo sidii jawaan la isaga tuura maaha dikriga iyo cibaadada aan badin waxaan waqti waa dheereeyey raalli ahaada intaasaan ku soo gabagabaynay jazaakum allahu khayran subxana allah bixamdiga ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk